إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون وتعسير تيرانيا له runtii aad iyo aad baan ugu xumahay runtii maanta waxaa dhacay waa musiibo rabbaani ah run ahaantii waxaan runtii aad iyo aad ugu tacsiyeynayaa qoyska uu ka geeriyooday generaal cabdikariin yuusuf dhagabadan oo shaksi muhiim u ah ummadda Soomaaliyeed oo ina tabi doonto cabdikariin dhagabadan waxaa tabi doono dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan wuxuuna ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan oo muxuu ahaa aad ula dagaalamay kooxaha argagixisada ee al-shabaab run ahaantii kadib markaan xog wareysi fara badan aan sameynay oo ummadda Soomaaliyeed ee joogto magaalada Muqdisho aan la xiriirnay waxaan soo ogaanay in cabdikariin dhagabadan muxuu ahaa saaka aroortii salaada subax muxuu ahaa markii masaajid ku yaal hotel saxafi gudihiisii kasoo dhaadhacay qolkiisii uu ka deganaa hotelka dhaxda ay muxuu ahaa u galeen kooxaha xagjirka ee al-shabaab hase ahaatee arrintu waxay ahayd arrin mission ah oo lasoo diyaariyey oo qorsheysan bay ahayd waxaana ka dambeeyay barnaamijka fududeeyey nimanka shaqaalaha hotelka muxuu ahaa hotel saxafi shaqaalihiisii iyo waxaa isla ogaa nimankan oo la yiraahdo nisa ee dowladda xasan sheekh maxamed u shaqeeyo raggaas ayaa arrintan muxuu ahaa aad iyo aad ula socday ayagii baa fududeeyey ayagii baana ka dambeeyey dhagabadan runtii uu hubaysanaa wuuna dagaalamay masaajidka intuusan soo gaarin ka hor dagaal buu la galay nimankii argagixisada ee loo fududeeyey inay hotelkaas soo galaan oo ay laayaan dadka wadaniyiinta Soomaaliyeed oo meesha deganaa uu kamid yahay xildhibaan maxamed cabdi yuusuf oo ahaa xildhibaankii ayaanti dhaweed daraadiisa loo xiray TV-ga universal marka halkaas ayaga waxaa ku sugnaa ummadda keliya Soomaalinimada jecel oo qiimaha Soomaalinimada ku hartay ayaa meesha deganaayeen waa arrin shirqool ah waa arrin muxuu ahaa la wada ogsoonaa oo ummadda Soomaaliyeed dadka waxtarka ah oo wax fahmay Soomaalinimada raadinayo sababta loo laayay waxay tahay waxaa muxuu ahaa laga cabsi qabay inay abuuraan kacdoon shacbi ah inuu ka dhaco magaalada Muqdisho abaabul fara badan bay wadeen raggaas ayaga ah waa rag Soomaalinimadu ay dhab ka tahay rabo ummadda Soomaaliyeed mugdiga nolosheeda gashay inay ka saaraan oo iftiinka ay u saaraan nimankan muxuu ahaa oo xag jirka ah ee wadanka joogo waa qorshe muxuu ahaa loo fududeeyay bay ahayd sababtoo ah nimanka shabaab meesha galay Muqdisho gudaheeda ayaa lagu diyaariyey guryaha la siiyey waan ognahay dib baan kusoo bandhigi doonaa meelaha ay ay kusoo diyaar garoobeen hubka meelaha laga soo siiyey qoryaha ay wateen waxaan soo ogaanay inay bixiyeen nimankan nisa la yiraahdo inay bixiyeen ayaan gadaal dambe kasoo ogaanay insha allahu tacaala wixii cadeen rasmi oo faahfaahsan waan sugaynaa laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ugu tacsiyeeyo marka ugu horeyso Allah u naxariisto intii meesha ka dhimatay uu kamid yahay ninkii ganacsadaha ahaa Cabdirashiid Ilqayte oo kamid yahay ninkii xildhibaanka ahaa meesha ku dhintay oo kamid yahay muxuu ahaa ninkii oo wariyaha ahaa waxa aad iyo aad laakiin si aad aniga ii taabatay khaasatan generaalka ayaa dhimashadiisii aad bay ii taabatay sababtoo ah wuxuu ahaa nin muxuu ahaa Soomaalinimada daacad ka tahay oo shaqada u qabtana ka run sheegay ayuu ahaa nin aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed sabir iimaan Allah ka siiyo laakiin waxaan u sheegayaa ummadda Soomaaliyeed inay ogaadaan in muxuu ahaa falkan maanta ka dhacay hotel saxafi qaraxyada way kala ahaayeen falka maanta meesha lagu sameeyay hotel saxafi waad ogtihiin oo hotelka kaliya oo inta badan aan horey loo weerarin oo aad iyo aad amnigiisu adkaa laakiin barnaamijkan qorshe weyn baa laga lahaa dadkan Soomaalinimada daacadda ka ah rabo muxuu ahaa kacdoon shacab inay abuuraan rabaan in la laayo ayaa go-aanka ahaa sidaas daraadeed insha allahu tacaala kamana dabahari doono ayaga kelina ma ahan Soomaali dhammaan waa joognaa waana ka shaqeyn doonaa midnimada ummadda Soomaaliyeed Soomaali waxaan leeyahay muxuu ahaa nimankan oo damul jadiid la yiraahdo Faarax Cabdiqaadir Saak waxaan arkay tacsiinayo oo muxuu ahaa page-ka Twitter-kan ku wada hadalnay waxaan u sheegay in markuu asig inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun soo qoray Faarax Sakiin waxaan u sheegay adiga ayaa ka dambeeyay wakiilka al-shabaab u fadhiyo villa Soomaaliya inuu asig yahay waan sheegay xisbiga damul jadiid ummadda Soomaaliyeed way baabiyeen wayna laayeen waa Soomaali waa inay kacdoon degdeg ah la sameeyaa oo arrintaasna si degdeg ah muxuu ahaa cadeymo loo soo gudbiyaa
caalamka insha allah raggii ka dambeeyana maxkamadda heeg ayaan soo istaajin doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.